kale dulmi caadana ku dilay asoo canaana karo ama asoo ayagoo wada joogaan meesha ayagoo canaana karaan ayuu xabad ugu jawaabay wajaantii oo canaantii ahayd ayuu wax uga dhigay xabad uga dhigay wiilkeena cadaalada u rabnaa anag wiilkeena ninka dilay الله نحرسه وويل الهراء أو سنة كان كخل الجبي دكتور سرة يعني أذكر الثقل دن أقول لك دقمة كاران فملكي ويل كاس كان أنت ما أنت أيام في جرجلين وحين داركم مرة إن ويل كاس اللي ويل كلا لا تكتمه حبايرتي على دوين بلا ولكن فملكي ويل كسر لو دي لو ويل الهراء حد قل الجبي امتحان كدور دكتور الجبي ودكتور سرة ويل مستقبل الله لك أذكرت ويلي الهراء ده سبلاش يودي مقدش الحذاء ما أنت تي ودي لك حرا يودي ساكي فملك ويلك محلهن tare ka qalin jabinaysana dugsiga sareeto Cabdiraxmaan sidoo kale waxa la sheegay inay murmeen wiil la degnaa xaafada taasoo sababtay in uu soo kala dhaxgalo mid kamid ah ciidamada booliis military ee nabad sugidda u jooga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxa la sheegay in muran oo soo kala dhaxgalay Cabdiraxmaan iyo askariga dilka u geystay taasoo sababtay in uu dambeyn uu askariga rasaaseen ku furo Cabdiraxmaan taasoo sababtay inuu u dhinto dhaawac ka soo gaaray xabad lagu furay qaar kamid ah marxuumka eelkiisa ayaa la hadlay warbaahinta risaala meeshan walaalkii lagu dilay nin askariya oo booliis military ka tirsan oo ciidanka nabad ilaalinta oo loogu talagalay xaafadda inay ilaaliyaan ama xaafadda ay ka warhayaan amnigooda iyo inay ka warhayaan nabadoonkooda kale de wiil yar istagaaleen dawladda markay istagaaleen wiilka yarka sidii awgeed waa la kala celiyay wiil kale istuura la dhahay markuu istuur lahay uu istuuray kan istuura laha isku tuura wadaan wiilkan uu caayay waan la dagaalay ha isku tuura dawladda ka bacdi dada qoriga kula dhigeen qoriga oo koob karistay baa soo saartay dada kula dhigeen qoriga ka bacdi qoriga markay kula dhigeen dadkii ninkan qoriga saas loo lahay ninkan uu sii jeestay wuxuu ma ka tago magay soo ka sii socdo ayuu xabada ka dabagiyay dhabarku ka galiyay naas kurkiisa oo naga soo baxshay kale dulmi caadana ku dilay asoo canaana karo ama asoo ayagoo wada joogaan meesha ayagoo canaana karaan ayuu xabad ugu jawaabay wajaantii oo canaantii ahayd ayuu wax uga dhigay xabad uga dhigay meeshaasna waxaa ka muuqato inaysan ka jirin cadaalad oo qof walba qof iska dilaayo askartan Soomaaliyeed qof walba waxay leedahay waxa $5 iga soo gaarayo dilkaaga ay leedahay qof walba qof markuu dilo hadii la dili lahaay maanta waxba imaan lahaay qof taabto ma la arki lahayd kulli waxa keenay qof walba qof waxay leedahay $5 iga soo gaarayo qarankaaga maxaa aniga maxaa ila taa hada ku dilaa qof walba saas oo iska leeyahay askari qor loo soo dhiibay intuu noogu ilaalin lahaay oo nabadda noogu keen lahaay inuu anaka noogu dilo ama anaka noogu dhibaateeyo ayuu meesha noogu joogaa dawladda Soomaaliyeed cadaalad meesha ma taalo qof walba qor loo soo dhiibana waa cabtooy oo ayaga dhan cabsanay qor loo soo dhiibay dad mas'uul ah ama dad oo loo jeedo mas'uuliyiin loo jeedo qor loo soo dhiibin qof waxa loo soo dhiibay oo iska cabsan oo ma habeen walba iska cabaayo wadadan istaag lahayo dad wiilka dhalinyarada horta Allah u naxariisto waa wiil gacan ka xaq daran dishay askarta laakiin wili dhalinyaradii yararka ayaa xasuuq ku wadaan Muqdisho waay xalay Kaaraan ayuu dilkaas ka dhacay wiil dhalinyarada waay oo hadda ka qalin jabiyay dugsiga sare بالفيري مستقبل له آيتين له أيوة حبتك لجي فملك ويلك واحد كدعي قيلان قفل بايا مغلاء هكذا ما تقول بررتي والدك أكتب بررتين عسكري قابت سجع الرئيسي ده الله قبر بالفيري عدال درجة كسر كاسي سوالي كان قتل ملر كاسية دلك مقدشو بلا ما عندنا هذا كله دليل مقدشو دلك دي بحر قتين ده قف كل سد اللي سكبحه وعسكري هو واحد سوا أو قدر كدل muuqaal gaarsi waa wiil mustaqbal leh xaafadda laga jecel wali waa xaafadda la Argentina dugaya waa degmada Kaaraan maanta dadkiisii maanta fijir ay galay ilaa la soo qabto dilaaga ama qaatilkaasi mala dugay familkii dhaarku mareen shaqareen muuqaalka wiilkan dhalinyarada dhintay Allah u naxariisto u duceeno ama miskiin laga gardaraya oo gacan ka xaqdar ayaa dilka u geystay ala shaqareeyo aad maasan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh